assalaamu calaykum. waxaa laga yaabaa in badan oo naga mida inay isweydiiyaan muxuu ilaahay noogu waajibiyey inaannu soonno bishan ramadaan, maxaannu u gaajoonaynaa oonu u haraadaynaa, waa maxay xikmadda ku jirta inaannu soonno oonu gaajoonno? ma og tahay intaanan laga dhigin bisha ramadaan soonkiisa sidan aan u garanayno hadda ka hor inuu dhowr marxaladood soo maray? ilaahay subxaanahu wa tacaala wax naguma waajibiyo waxna nagama reebo ilaa waxaa ku jira xikmad ama xikmado badan aan ogaanno ama inaannu ogaan. haddaba soonka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu waajibiyey waxaa ku jira xikmado aad u fara badan. 5 xikmadood oo keliya ayaannu ka sheegi doonaa. xikmadda koowaad waa inaan masaakiinta baahan ee fuqarada ee waxba haysan ee mar walba gaajo iyo haraad ku nool inaannu u naxariisanno oo xaaladday ku sugan yihiin dareenno. xikmadda labaad ee ku jirta waxa weeye inaan xakamaynta nafteenna baranno oo waxyaalahay jeclayd ka go'i karno inaan nafteenna ka adkaanno ay iyadu naga adkaan, waayo muslimiin haddaan nahay mar walba nafteennu inayna hogaamiso ma ahin. xikmadda saddexaad waa inay macaasida iyo dunuubta badan aan maalin walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala soo geliyo aanu la imanayno inay naga yaraadaan, waayo naftu markay dharagsan tahay ayay dembi badan tahay. gaajo iyo haraad markay dareentana dunuubteedu iyo macaasideedu way yaraanayaan. 4 inaannu xasuusanno nicmadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nuugu deeqay sida acabka iyo cuntada, oo kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala u shukrino oo u mahadnaqno. nicmaddu markay ka guurto ama ay ka maqan tahay addoonka ayuu qiimaheega gartaa. xikmadda shanaad ee ugu weyn waa xikmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay, xikmaddaasoo ah alla ka cabsigu inuu noo siyaado bisha gudaheeda. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alsiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. kuwii ilaahay rumeeyow waxaa laydinku waajibiyey inaad soontaan sidii kuwii idinka horreeyeyba loogu waajibiyey. waxaa mudan tihiin inaad alla ka cabsi la timaadaan. garanay xikmadaha ku jira soonka bisha ramadaan. se goormee la farad yeelay oo la waajibiyey inaannu soonno bishaas? waxaa la waajibiyey soonka bisha shacbaan ee sanadkii 2 ee hijrada. nabigeennuna sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhintay rabiicul awal sanadkii 11aad ee hijrada. halkaas waxaa ka cad inuu nebigu sallallahu calayhi wasallam soomay 9 ramadaan. farad yeelinta soonka bisha ramadaan wuxuu soo maray 3 marxaladood. marxaladda koowaad waxay ahayd kala doorashada soonka iyo fidyo bixinta. qofku wuxuu ikhtiyaar u lahaa inuu soomo hadduu doono ama uu fidyo iska bixiyo hadduu doono, yacni masaakiin inuu quudiyo oo sidaas soonka ku daayo. yacni qofku isagaa kala dooranayay, hadduu doono wuu soomayey, hadduu doono intuu soomi lahaa wuxuu iska bixinayay fidyo oo masaakiin ayuu quudinayay. waxaa arrinkaas u daliila xadiidkii salamatu ibnulakwac radiallahu canhu ee saxiixaynka ku soo arooray. wuxuu yidhi markay soo degtay aayadda وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. qofkii raba inuu iska afuro wuu iska afurayay oo masaakiintuu quudinayay ilamaa ay soo degtay aayaddii ku xigtay ay xukunkeegii beddeshay. marxaladda labaad waxay ahayd inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waajib ka dhigay inaan la soomo, laakiin markuu waqtiga afurka uu gaaro, markuu qofku seexdo ayuu soonkiisu u bilaamayey ilamaayo maalinta xigta. yacni tusaale ahaan waqtiga afurka markuu gaaray ee afsuratay ayaad seexatay, sidaas ayuu kugu bilaamayey soonkaagu maalinka kale. arrinkaasna waxaa daliil u ah xadiidkii albaraa bn alcaazib ee ku soo arooray bukhaariga. nin la odhanayay qays ibnu sirmat al ansaariy oo isagoo sooman xaaskiisa u yimid oo ku yidhi wax cunto aan ku afuro ma yaallaa? xaaskiisu waxay ku tidhi maya, se haddaan kuu dooni. ninkaas maalinkoo dhan ayuu shaqaynayay. xaaskiisii markay baxday ay cunto u doontay, wuu isxajin kari waayo wuu seexday. hurdadii ayaa ka adkaatay. xaaskiisii ayaa soo laamatay iyadiyo cunto u sida. markaabay aragtay isagiyo hurda. waxay ku tiri khaybatan lak, hoog ayaa kuu sugnaaday. sidii ayuu soonkiisii ku xidhiiriyey ilamaayo maalinkii kale. maalintii xigtay ninkii wuu suuxay oo soonka wuu ku adkaaday maadaamuu shalay oo dhan uu shaqaynayay, soonkiisina uu xidhiiriyey isagoona afuran. arrintiiba nebiga loo sheegay sallallahu calayhi wasallam. kadib waxaa soo degtay aayad beddelaysa xukunkaas. sidaas ayaa marxaladdii saddexaadna aan ku soo gaarnay oo ah sidaan wada garanayno ee ah inuu soonku waajib ku yahay qof walboo muslim ah oo qangaar ah oo caqli leh oo caafimaad qaba oo degan oo musaafir ahayn, min waaberiga ilamaa qoraxdu ama cadceeddu ay dhacayso, yacni min waqtiga salaada subax ilamaayo maqribka. 3daas marxaladood aanu soo sheegnay ayuu soo maray faradyeelinta soonka bisha ramadaan. intaas ayuuna muuqaalku maanta nuugu dhan yahay. kulan wacan oo wanaagsan. wassalaamu calaykum. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي
تقبلها عطول.